كل مرتقى فروعين حالي هاي سوي مدن ururka dhalinyarada beelaha Subeer awal oo ay ka soo qayb galeen badiba dhalinyarada beeshaasi ayaa waxay kulankaasi ka dhawaaqeen urur ay ku midoobeen dhalinyaradaasi ururkaasi oo la sheegay inuu ka shaqeynayo isku xirka dhalinyarada beeshaasi ayaa waxa loogu magac daray Tidaale wareen waxa kulankaasi ka hadlay laga dhawaaqay ururkaasi gudoomiyaha dhalinyarada beesha oo wareen ba soo dhaweey ka soo qayb galayaasha waxana caawa halkan suunimi furitaanka aba waqasha ururka dhalinyarada beesha Subeer awal ee magaciisu yahay Tidaale kaas oo loo asaasay sidii la isku xiri lahaa dhalinyarada amba ay noqon lahayd dhalinyarada gudiyada bedda qaar isugu yimaada oo fikirkiisa wadaarsada afayeenka ururka dhalinyarada ee Tidaale ayaa isagoo halkaasi ka hadlay kana warramay ujeedooyinka loo asaasay ururkani waxa bilihii nagaafay ama dhawaantan aad maqla jirteen urur la yiraahdo dhalinyarada Subeer oo ay ku bahoobeen ururka ujeedada aan u abuurnay wuxuu ahaa inuu isku xidho dhalinyarada beesha Subeer awal isagoo ka duulaya jaangoynta ama himilada siyaasadeed ama dhaqan ama dhaqaale ee bulshada Subeer awal himilada ururkan aan halkan caawa ugu wanqalayno waxa weeyaan sidii uu xiriirin lahaa ama u jaangoyn lahaa siyaasadda beesha Subeer awal ee heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah guddiga iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka haweenka ee dhalinyarada beeshaasi ururka Tidaale ay u sameeyeen qaybaha kala duwan ee beesha ka kooban tahay xafladan waxa sidoo kale lagu wanqali doonaa ururka dhalinyarada beesha Subeer awal oo magaciisa la yiraahdo Tidaale atageyno sidaan ogaada dhalinyaradu inay israacaan marwooyinka israacaan anaguna hadan dumar ahaanahay oo Hargeysa Subeer awal ka jooganahay waxaan doonaynaa inaan sameeyno xaflad tan la mid ah oo saas ku raacno yar anaga oo inta ka sii daciifsan imka nool wadayna waxaasna wax lagu yeelay ma aha anagu ayaan u arkaa way gudoomiyeen dhanka xukuumadda cadaadis baa ka dareemaysan saan filayo saadadiguna sheegtay maxaa ku sifeen kartaan maadaama uu xafladini bilow ilaa dhamaad idin kala soo qayb galay maarayaha TV-ga qaranku ilaa haddana uu dhalinyarada ku dhex jiro run ahaantii horta cadaadiska ma yara oo dhinac kasta hadday noqoto hadday xubnaha noqotay oo haddii ay wax weeyaan personal attack ay noqoto labaduba kulli way jirtay taasina waxa weeyaan dhalinyaradu way isku xidhan tahay dhalinyaradu danahooda ka tashanayaan qaar baa tashanaya wax weyn meel walba ka hadlaya qaar baa waxa ku yiri la siiya maaliyad oo leeyahay hadla qaar baa waxa ku yiri in la siiya waxa weeyaan la taageero oo support la siiya oo dawladdu siisa anagu wax siyaasiga ma ka hadlay wax danaha iyaga aan kaga hadlaynay horumarin baan kaga hadlaynay waxaan kaga hadlaynay waxa weeyaan si dhalinyaradu gudayada badbaas ku qabsan lahaayeen وكفر دومية تدبر واحد قاعد كرنا هباس يهاي هذا الكون مرة هرب ماريا هاي دولة دي واحد بس الوحيدين تذكر عين كاور في dadka waxa leeyahay waxba kama jiraan weeyaan arrinka waxba kama jiraan weeyaan anagu wax xiriir naga dhaxeeya ma jirto saxaafaddu run ahaantii waxa weeyaan waa loo yeeri karaa laakiin anagu wax dawladda naga dhaxeeya xiriirkan in xagga dawladda la soo diray amba maareeyaha hadday noqoto amba hadday dhinacyada kala noqoto anaga wax xiriir ma aanan ogeyn imku mar meesha ku aragnay shaqaale iyo wariyaal ka tirsan TV-ga qaranka meesha cusubtay may walaasanta